وحويا ولا لا يا واحد بدن بس سوق قبتين واحد سوق قبتين ودم وحواني الجواد أركي أما أنتي نوالدي مدبا ولا لا يواني شيء إني شيء وحويا دليرت سكول كدكتا إنما الجامعة مويان أنت هو سوى الضرر أنت جامعة والسوق عاوسين والأبناء إن السوق عاوسين وحويا أنت هوس إن باجرتا ولويك كتضبط دكتا كسديدات دكتا كسجالات دكتا وحجر قارب باجر أقوما ونقابلها ونهوي لها وأحرق بوق وحيو سيستان وحكو سيستان مكوايا وكهرا الفورم وحكو بسدا مكوايا بس راعوا قاربة أحرق وأقوما ولا لها يو أنا أنت من عطسني إن تقرقرتي وحلقة بتي والسلام عليكم. مركب فاطمة عفوا الدنيا هدي أورك إنما يتشكل دليرتها كسيدة لك سجلات وأقومها يونيفورم درتين أمولاي بوغلان وهذا هدي جرجر لو سقطه هالكيه اللوجو سه جيب هذا ده وحلوجو سه جاينيا وحويان وحجرة وجاس بمشوا جوجا وحجرة أورور كم بجوجا وحجوجا أورور دلير بجوجتا وأغانيسا وحب ويدي كوا حاجة سرادة كتاب العقبة لو صدرايو أدوكوا وير باهي واحد جرى كوا كلو أقومينا أقل كسيدة أقل كتطبات أقل كل حد كتاب أو حتى يونيفورم أنت وين تقبح حساب مركا هدي حتى إنما دينا حاجة جوكا يقرقر صدران هل كيه اللي وصوا جدول جعش واحد على أضيال بينه لنا أضياش إن الله وصوا جاتشيو الله صحريري أورك أضياش وجزاوي جن لو جزاوي جبين الله صادقون هكا وأقوم وي أب ملها إن بدن بيجرتوا أقراض فردة يمكن حلو حس كله ذو كل كلام مركا فتون يوسف بعد ما سنتهي ترى واحد فتون يوسف والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهرين هرتا محمد هاي وحن سجار مهضق قار وجيبني حفلة محمد هاي إدي أبا بشيء يعني مهضق قار وجيبني مهضق لبعض وحن جيبني وحن دورك ورنتي دقدقاق في عن موجي دبال بدل موجي محمد هاي دمر كنا وحوي وهالكي قوس كل شيء بشد waxay ka dhisantaa qoyska ka bilaabata qoyskana hooyadu ka bilowdaa hooyadu markay nolol bilowdo iyo mad noolaataa marka radii dumarkii ay noloshan keeneen iyo abaabulkan iyo dhaqaaqan keeneen marka halka waxa ka muuqanaysa inay muxuu ahay ummadii gurguruhu ay noolaanayso bay noloshu halkay ka bilaabmaysay yaa hooyada iyo qoyska marka mar haddii noloshii hadda ay ka imanayso xaggii hooyooyinku ay bilaabeen xarakaadkan marka nolol baa muuqata iyo mustaqbal wanaagsan inuu soo socdo marka iyaguna si gaar ah ay u mahadsan yihiin sabaabulka ay sabaabuleen midaba wadeen annagu dhagta ma ka maqlay iyaga muxuu ahay noloshaasi markaa waxay gaaraysaa nolosha qoysku ama hooyadu markay noolaato caruurtay gaaraysaa aabihii bay gaaraysaa baraarugu markaa wuu is wada gaaraya marka waxaan leenahay muxuu ahay dumarka halkaa ka sii wada qoliyaha dibaddana waxaan leenahay dumarkaas waxay u baahan yihiin gargaar gacansiin bay u baahan yihiin idinkuna muxuu ahay runtii xaraka ay ka muuqata qoliyaha dibadda marka inay dumarka iyaga ah ee nolosha cusub hadda abuuraya waa muxuu aasaaskii qoyska waa aasaaskii nolosha iyagana in gacan lagu siiyo muxuu ahayaan ka codsanaynaa iyagoo dadaal badan beryahanba wada oo muxuu ahay intii kalena markaa ay ku wada dayanaysaa marka waxaan leenahay bulshadu tu dibadda iyo tu gudaha markay wada qabsato iyo horumar gaari kartaa marka arrintaa la bilaabay waxaanu jecel lahay waxaan muxuu ilaahay ka baryaynaa inay noqoto loo aayo oo guul weynna muxuu lagu gaaro horumar weynna lagu gaaro waad mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم أركي مهم كها صاحبتي بقى هذي لكن هي راح خصوصنا
duqan ama odagan hadlay waxa weeye cabdiwahaab sheekh cabdiweli oo cid walba ama gudaha ama dibadda aad wada taqaanaan intaa yar waxaan ugu yar daray magaca inaan idin xasuusiyo marka xiga anigana yuusuf muuse dheeraa la yidhaah oo odayaasha gurguraha ee aqalka ugaas ka taliya marka wixii muhiimadda ahayd saaxiibkay baa ka hadlay waxa weeyaan ummad walba haddaanay wax wada qabsan ama ay istaageerin meel ma gaari karaan qowmiyadaha aynu la noolahay ee cid walba leh gudaha iyo dibaddaba way isku xidhan yihiin dhinacii haweenka dhallinyarada waxoo dhan way isku xidhan yihiin marka isku xidhnaanshahaasi waxa weeyaan marka uu helo taageero dibadeed wax muuqduu noqonaya ilaahay baa mahadda iska leh haddii maanta communitigii gurguraha dibadda joogay ay xasuusteen ummaddoodii ka dambaysay ee deganayda ee dalka ummaddeennu aad ba u ballaaran tahay dhinacyo fara badan bay degaan afar fara badan bay ku hadlaan siiba afka soomaaliga iyo oramaha labadii way isku xidhan yihiin way wada socdaan markaa waxa weeye sidaas si la mid a idinkuna waxaan u malaynaya inaad saa isugu xidhantihiin markaa waxa weeye annagu waxaan idinku boorinaynaa haweenkaa sifar bay ka bilaabeen maantana meel yacni la taaban karo ayay gaadheen markaa haddii gacanta yacni loo fidiyo oo wax la taro waxay noqonayaan lafdhabarta ururka haweenka Itoobiya qowmiyadda gurguraha taasna waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa in taageeradiinu mar walba waxay u baahan yihiin kolley iyagaa hadlay oo sheegtay waxaas haddii yacni sida ugu dhaqsaha badan wax loogu daro iyagoo ku darsanaya wixii awooddoodii kolka horeba haysteen qofka hadday wax u bilaaban yihiin dhammaystirku waxba yacni culays kuma hayo sidaa darteed aad iyo aad boqolkiiba dhowr boqol baad mahadsantihiin haweenka maanta yacni halkani ka muuqda ee dhibtay soo mareen dhib yar maaha laakiin dadaal halkan ay ku soo gaareen maanta wixii laga bilaabana waxay heleen walaalahood oo la qaybsanaya wixii yacni ay jiraan sidaa darteed anigu waxaan leeyahay barasho wanaagsan idinka iyo annagu kulley aan kala fogaano laakiin dad wada dhasho meel wada joogaanahay waxtarkiina kulley annaga horta waxa wax loo taraba marka hore in dadkiiba soo eega la yidhaha horta waxtar weyn bay tahay qofku hadduu isbarto wax badan buu istaraa marka waxaan leeyahay rag iyo haweenbaytiina qurbaha joogta annagoo magacii odayada iyo ummadda ku hadlayna aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waa salaamanti ogaazawiga marka oo maanta meesha oo ka arkaysa gurguraha haweenka nimanka community gurguraha dibadda jooga haweenka ma la gacan qabto miyaad leedahay aad iyo aad hadalladeedii ku jirtay waxa weeye wax yacni iyagoo oon cidiba taageerin bay halkaas soo gaadheen marka waxaan leeyahay hadday taageeradooda ku biirto haweenkani wuxuu noqonayaa beeskii quraatee laga dhaqaaqay kaasi waxaa yuusuf muuse oo kamid ah ururka odayaasha ee ogaazawiga haye guddoomiyaha degmada ee reer ibraahim oo maanta kasoo qayb galay ururka haweenka hooyooyinka ee gurguraha marka bal ibraahim adigu maxaad ra'yi ahaan ku aad dhibanaysaa bismillaahi raxmaani raxiim marka u horeysa waxaan doonayaa inaan halkan ka salaamo ama mahadnaq aan uga jeediyo aabbayaasha kasoo qayb galay shirkan iyo hooyooyinka iyo dhallinyarada iyo xubnaha kale ee aan malanaya inay waddanka dibaddiisa ay nooga yimideen marka hore iyaga ayaan salaan u gudbinayaa una mahadnaqayaa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay isu imaatinkan ama shirkan ururka haweenka gurguruhu ay isugu yimideen run ahaantii haddaan hooyo jirin hooy ma jiro haddaan hooyo jirin dad ma jiro haddaan hooyo jirin nabadi ma jirto haddaan hooyo jirin nololi ma jirto hooyadu waynu ognahay waxay tahay hooyadu waynu ognahay hadda inay iyada uun inta badan reerka u xamaasho ay ka duwan tahay duruufteeda hadda waqtiyada horena inay ka duwan tahay marka maanta o dhan haddaan hooyada waxay tahay aan sheegno ama aan isniraahno aan ammaano dee ma soo koobi karreelaa maanta o dhan marka aad iyo aad ayaan horta ugu faraxsanahay imaatinkan qiira geliyey ee qaaliga ah ee ururka haweenka ee gurguru ay isugu yimideen
ما من آدي آدي فرحت قليل ومن أنا آدي آدي مريض صناعي إن كستون أنا كشقيو دقمدا كلا عن دوميه ذا هذانا وحاول أن حط وان للصعدة هذا الشهر قاب صعد كودا يهولا هيان يتدال كودو ومن آدي آدي فرح قليل ومن أنا آدي آدي مكرسون هاي أنا جنا وحنا نوديار صن إنا مسكرة تاجنو هيل يهوبا إنا نهويو يكيج إسحاق قامي هير كاسو قالي إنا مسكرة تاجنو أيام نو قرشيسن أو قرشة نو بشرتا سمكة مركا آدي أيام لون هاتسي هاي سدوك كلا حضنها وحوي الدبد الشوقي مقعاسة caalamku sida badan aad iyo aad buu uga faa'iidaystaa dadka dibadda jooga sababtoo ah wadamo dhaqaalahooda horumaray bay joogaan cod kasta oo waddankaa tagtana waxay u faa'iidaysaa dadkoodii iyo waddankoodii ay ka tageen ayay u faa'iidaysaa marka xubnaha magacaa sheeganhaya ee dibadda jooga waxaan isweydiiyaa su-aalo odhanhaya waxay sida qoomiyadaha kale ama ummadaha kale ay waddankoodii maalgelin ugu sameyn waayeen mashaariic uga furi waayeen waxaa weeyaan warshado uga furi waayeen waxaa weeyaan sidaan ognahay dhulka lahaanshiisa waxay ku xidhan tahay hadba ninkii waxaa weeyaan dhagax ka taaga ama dhismo ku sameeya ama beero ku sameeya ciddaas weeyaan cidda loo aqoonsan yahay marka anigu xubnaha dibadda jira dee horta dhaliil waxaan uga dhigayaa maanta waynu ognahay magaaladeena Dirdhaba waa fara ku tirisda hantida guurtadeena ku leenahay marka maadaama ay joogaan wadamada dhaqaalahooda horumaray sida ummadaha kale waxa weeyaan dibadaha tagay Afrikaanka ama qoomiyadaha kale Soomaaliyeedba maxaa u diiday inay horumarin sameeyaan oo waddankooda maalgelin u sameeyaan oo bandarada ka dhisaan oo aqallo lagu faa'iideysto ka dhisaan oo warshado ka dhisaan oo goobo wax lagu barto ka dhisaan maxaa u diiday waa su'aal inay ka jawaabaan waan rabnaa qolyaha dibadda jooga qaliil baanu nooga dhigaynaa taas aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay waxaa weeyaan ismaatinkan iyo dadaalkan horumarineed ay sameynayaan hooyooyinka iyo qaaligaa marka iyagana waxaan leenahay waxaanu idinka codsanaynaa inaad si dhaqso oo degdega aada horumarka hooyooyinku ay isku xulqaameen aada uga qayb qaadataan مركلة أيات سلامتين السلام عليكم. وحباً أوركي فديك أورك هويوينك بربرها مركا جديد هالكن ما أنت كو إنه فدينا هويوينك مركا ما دام ده كده واجد ساي وان سكرم تاجي ناون كرم تاجني إنما ده إننا قربها جوجا أما جودي كوميونيتيجا ما حد يفرق لهذا إنه وقبتان أما إنه شو كرم تاجن. way ballaaran tahay wixii loo qaban lahaa ama ay habboon tahay in loo qabto waxa weeyaan horta waa in maalgelin lagu sameeyaa la siiyaa xafiisyo ay ku shaqeeyaan loo dhisaa waxbarashooyin kala duwan noocyaha kala duwan ee kuwa dumarka oo kale ku wanaagsan loo sameeyo qaybo iskaashi oo ganacsi laga gacan qabto iyo waxyaabo badan oo kale oo lamida ayaan doonaynaa inay u qabtaan xubnaha dibadda ku jooga magaca gurguraha kaasi waxaa Ibraahim Sheekh Axmed oo fariin faray hadba wixii loo tari karo in loo tiro ururka hooyooyinka gurguraha bismillaahi raxmaani raxiim anigoo Safiyaadan Cumar mar labaad ku soo noqday horta rag iyagu aad iyo aad bay u mahadsan yihiin halkan ala fadhiya odayaasha aad iyo aad bay u mahadsan yihiin rag iyaga kale dibadda joogaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin Ibraahim Yuusuf oo walaalkaya ama inankayagaya oo aad iyo aad buu isaguna u mahadsan yahay xafladan maanta halkan aan ku qabanay ee rag iyagu nagala soo qayb galeen horta aad iyo aad baan ugu farxay midii aan rag iyaga ka sugaynay weeyaan inay sidaa noo qabtaan hadda ka horna aan ku dhaliilayna rag iyagu maxay noo garab joogsan laayihiin maxay wax noogu sheegi laayihiin maxay ahayd ay noo gargaari laayihiin gacanta maxay noo qaban laayihiin waanigii imikoo kale ka hadlaayay geedaha hoostoodaanu fadhinaa qalbaan karaysan kari weynay waanigii buuga halkan idinku tusayay hadalkaa uu Ibraahim Maxamed taabtay aad iyo aad baan ugu farxay hadalkii uu Cabdi Wahaab yilina aad iyo aad baan ugu farxay waa sidii aan ka